aad ka warqabteenba waxaan maanta bilownay maanta taariikhda 15 bishii 10 2016 waxaan bilownay shirweynaha maxkamadaha dawladda deegaanka iyo qiimeynta waxqabadka maxkamadaha dawladda deegaankeenan sida loo ogsoon yahay shirweynaha maxkamaduhu sanadkiiba hal mar ayay yeeshaan shirweynahaasi waxa qayb ka ah 12 maxkamadood ee gobolladeena gudoomiyaasha ka shaqeeya ama mas'uuliyiinta ka ah garsoorka maxkamadda guud iyo mas'uuliyiinta maxkamadda heer deegaanaya ka ajendayaasha ugu muhiimsan ee ka wada hadalana ama aan shirweynaha kaga tashano waxa qayb ka ah sidii loo tayeyn lahaa ama hadba loo dadajin lahaa adeegga garsoor ee ay hay'adda garsoor bixiso dabcan adeeggaasi si aan u tayeyno waxa qayb weyn ka qaata shaqaalaha adeeggan inoo haya oo laba loo qaybiyo marka maxkamadaha loo yimaado shaqaalaha labadeeda nooc waxay kala yihiin shaqaalaha taageerada ama shaqaalaha adeegga bixiya iyo shaqaalaha adeegga meynka ah sida garsoorka iyo waxyaabahaas bixiya marka hadda ka hor sida dal ahaanba sida aynu wada isticmaali jirnay shaqaalaha supportive-ka loo yaqaano ama taageerada ah loo yaqaano waxa hoos tagi jireen oo maamulkooda iyo meeleyntooda iyo dalacsiintooda mushaaraadkooda arrimahaas oo dhan waxa ku shaqul lahaa xafiiska adeegga shacabka ama heer qaran wasaaradda adeegga shacabka hadba sida aynu u naqaano laakiin iyadoo laga duulayo qodobkan la xiriira madax bannaanida maxkamadda ee dastuurku dhigayo dastuurka dalka iyo ka deegaankuba iyadoo laga duulayo waxa dal ahaan hay'adda garsoorku ay hindisaysaa in shaqaalaheeda oo dhan ay hoos keento hay'adda garsoorka marka haddii uu maamulka shaqaalaha yahay hadduu garsoore yahay in maxkamadda la hoos keeno ayaa la hindisayay inaguna ka deegaan ahaan xeer nidaameed waxaan hindisnay oo maanta aan ka doodaynay tilmaamaya in lala soo wareegi kara shaqaalaha supportiga oo maxkamadda guud la hoos keeni doono dabcan waana madasha ku habboonayd waana goorta ku habboonayd waana cidda ku habboonayd oo gudoomiyaasha gobollada ayaa ka jira taas ayaa dood badan laga soo jeediyey xuquuqaha shaqaalaha mustaqbalka sida uu noqon doono shaqaalaha kale ee hay'adaheena dawladda oo shaqeeya waxay ku kala duwanaan doonaan xuquuqaha iyo waajibaadka ay ku kala duwanaan doonaan annaga shaqaalahan marka ay nala soo wareegaan hay'adda garsoorka laftirkeeda waajibaad dheeriyahoo fuulaya lacala haddii uu jiro waxyaabahaas oo dhan ayaan ka doodaynay gasha fiicanna dabcan waan ka helay insha Allah markii ugu horeysay weeyaan inaan doodahan maanta qabano laakiin markii ugu dambeysay noqon mayso laamaha kale ama cidda kale ee khusayso ama baarlamaanka ha noqoto ama shacabka ha noqoto waan sii wadi doonaa haddii la yiraahdo mara gasha muhiima ayaan maanta ka helay walaalo maasantii